waraysi uu siiyey wargeyska Dawar waxa uu kaga hadlay arrimo kala duwan madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu tilmaamay in lacagtii loogu tala galay dib u dhiska iyo casriyeynta madaarka magaalada Hargeysa ay sidii loo qoondeeyay u gashay madaarka isla markaasina aanay jirin wax lacag ah oo la musuqmaasuqay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka hadlay dib u dhiskii lagu sameeyay madaarka magaalada Hargeysa waxaana uu sheegay in khubaradii qandaraaska lagu siiyay in ay soo qiimeeyaan madaarka kharashka ku baxaya casriyeynta madaarka magaalada Hargeysa ay ku qadareen cadadka lacagta ku baxaysa in uu madaarka madaar caalami ah ku noqon karo 720 milyan oo dollar waxaana uu tilmaamay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland in lacagtii ay dawladda dalka Kuwait ay Soomaaliland ku caawisay ahayd 10 milyan oo dollar isla markaasina markii 10kaasi milyan loo kala qaybiyay madaarada magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera iyo khubarada hay-addii qiimeynta sameysay ay madaarka magaalada Hargeysa ku soo hagaagtay lacag dhan 4 milyan iyo badh dollar iyadoo lacagtaasi intii ay ka gaadhay lagu sameeyay madaarka magaalada Hargeysa